habeen wanaagsan, galab wanaagsan, subax wanaagsan, wax kasteedin tahay oo wanaagsan. Halkayga daawanaysan waa social media aan ku leeyahay baraha bulshada. Fadlan haday ugu cusub tahay moodaanin subscribe inay ii saarto YouTube-keeda. Inta follow iga soo dhahdo muuqaalka like saarto, comment ka bixiso, share dhahdo, asxaabtaada u sii dirto si u daawadaan muuqaal kasto aan soo saaro iyo mar kastaba aan habada soo galo. aad baa u mahadsantahay. wallaahi maanta farxadeeda lama soo koobi karo. aad baa u faraxsanahay sababtoo ah horta waxaan salaamayaa shacabka, waxaan salaamayaa madaxweynaha, waxaan salaamayaa baarlamaankooda, yaa ummadda heer Jabuuti. aad baa ii jeclahay wallaahi. arrintaa ku dhaqaaqdeen arrin aan ku farxee noqote, waayo waxay dareensiiseen muwaadin inuu jiro waddanka oo wadani ah oo dalkiisii iyo dadkiisii u danqanayo. sababta saas u leeyahna maxay tahay, waxaan dareemay muwaadin inuu waddanka leeyahay. maasha allah. horta madaxweynaha, baarlamaanka, shacabka oo isku xiran waxay qabteen shaqo adag. maasha allah. aad baan u soo dhaweeyey. waddanka ay ka saarayaan yamaniinta. yamani maaha kuwaasaa arkaysiin oo waddankeena joodo. waxaa ogaataa waa shulshul. waa kuwaan oo meelaha ka soo kaxeen ama yaman ay ku dhashteen ama kooytay ku imaadeen. ha u malaynin muwaadin oo yamani ah inuu yahay qofkaas. waa ajaanib meel kale ka imaadeen oo waddankii sheedanayo. qofka wadanida ah dhib kuma geysanayo. qofka dhaladka amaarad oo waddanka kusoo dhashtay dhib inuu ku geysto way adag tahay. taas ogow. waxaa la hadlayaa shacabka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka. waxaa ogaatiin qofka wadanida ah dhib kuma geysanayo. qofkana arkaysa dhib ku geysanayo waa shulshul oo meelahaas ka imaadeen, ama awoowihiisa ku dhashtay ama aabihiisa ku dhashtay ama asudaa imaaday. saddexdaas mid ay tahay, ama awoowihiisa ama aabihiisa ku dhashtay ama asudaa kooyto ku ah. marka baasboorkaas oo wato ha u fiirini. baasboorka waa la qaadan karaa, qof kasta qaadan karo, waa lacag. marka aad baa u soo dhaweynayaa waddanka inay ka saaraan, xataa ay xabsi geliyaan, ay xabsi xoogaa ku haayaan. markay xabsida xoogaa ku haayaan markaas sii diraan. saasaa aaminsanaha ani. waayo waxaa dareemayaa dadkeedii dhibaatada lagu haayo oo waddankaasi xataa xornimo ay ku mari karin, xataa ayakoo sharci haysto oo baasbooro haysto aan xornimo ku mari karin. marka waxaa soo jeedi lahaa ayakane inay waddankeedii inay xornimo ku maraan ma suurtagelayso. maalin dhexdaas maxaa daawanayo wiil oo youtuber ah, camero iska soo qaatee islaan oo meel wax isaga gadanayso ayuu muuqaalka duuwayo sidoo ku sheegayo wax aan islaantaas ay u qalmin. marka meeshaas maxay ka dhacday? Hargeysay ka dhacday ama burca u maleynaa inay ka dhaceen inuu ku duubay.
marka waxaan sheegayaa Soomaali ima kala soconaani ama Jabuuti ama Hargeysa ama Muqdisho ama meel kasto ee Soomaali degto waa inay iska ilaaliyaan ajaanibta waa inay fiiro gaar ah u lahaadaan bal fiiri qof ajaaniba soo dhaweysani walaalka oo ku baahan oo garabkiisa inaan naqato aragtid waa iska sikine intee ka dhacday tan koowaad walaalka walaasha garabka saaro madaxa saaro hiil iyo hoo garabsi markaas ka bacdi uu soo jeeso qofkaani kooytada ah qofka oo adigu ku xido marka meel saartid oo meel ku hubsatid ka bacdi ayaa u soo jeesan kartaa marka waxaan yaan ku dheeraanin aad baan ii salaamayaa salaan u diray ummadda shacabka Jabuuti aad baa ii jeclahay Soomaali oo dhan waa jeclahay meel kasta ee ku nooshahay aad baan ii salaamayaa kulanka xida inta hawada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo bye bye